qodobadii ugu muhiimsanaa qodbad ka soo yeertay Xasan Sheekh Maxamuud maruu ka hadlayay shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika qodbad uu halka ka jeediyay oo runtii noqotay qodbad umada oo dhan ay si adag markaa ay uga falceliyaan waxyaalo la yaab lahaana marka ay ku jiraan ayaan falanqayn doonaa qodbadaasi guud markii aad fiiriso message-keedii laba fariimood oo kala duwan ayuu diray Xasan Sheekh Maxamuud mid wuxuu u diray Itoobiya mid wuxuu u diray shacabka Soomaaliya mid shacabka Itoobiya u diray waxa la oran karayaa shacabka Soomaaliya wuxuu u soo diray fariin runtii ay aad uga niyad jabaan buuq badanna ka dhalisay baraha bulshada dhanka kale tona wuxuu shacabka Itoobiya u soo diray fariin markaa ay ku seexdaan oo aad moodid inuu markaa qoora salaaxayo bal qodbadaas ayaynu markaa falanqayn doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan iyo si walba oo markaa aad maqlisaanba qodobka ugu horeeya uguna muhiimsan oo hadalka ku jiray qodbada ah ayaa wuxuu ahaa wuxuu yiri Itoobiya iskuma hayno inay badeena soo gaartay in kale iskuma hayno waxaan isku haynaa sidii Itoobiya ay u gaari lahayd badeena ayaynu isku haynaa mana jiro dagaal naga dhaxeeya annaga Itoobiya oo badda ah ayuu yiri kaliya waxa meesha yaala sidee Itoobiya badda ku gaaraysaa da process kaas ugu isku diidana laakiin Itoobiya inay badda gaartay waarna dagaalna ma jiro ayuu saacad yiri bas bariyahan dambe wadankan dariska anaay Itoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda iskuma haysan annaga Itoobiya inay badda gaarto iskuma haysan dagaal naga dhaxeeya annaga Itoobiya oo Soomaaliya Itoobiya ay bad u diidan tahay ma waxaan isku haysanaa waxay tahay Itoobiya siday badda ku soo gaaray hadalkaas markaa وحسن شيخ محمود بانتا كشيء فقالها عالمي ومشى كساريا خيالي يبنتي ومدة وكسر حين يسلع السجع حسن شيخ محمود أو مساعد كسر درجي أيو بينين يا هذا الكيسو بينين يا مانتي مركزا وحصل مساجد ككيري اسمه هاي سجع مالين شمعة يتوبي وعدو وكوب أو عدو وكوب حال هاي بيري الشباب عدو قلبات يتوبي ونقدر بيري dhulkeena inay nagu soo inay maanta nagu soo hunguriyeysana ma ahayn ayada ahayd bay yiri inaan dhulkii ay hore nooga qaadatay markaasi aynu ka raadsano waxaan u sheegayaa cid walba sheekh iyo shariif cid walba inay diyaar garoobaan oo dalkooda difaacaan masaajidku halka ka jira haddii maanta dhul la isku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheegano Itoobiya annagay tahay Itoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadu inaan dhul nagu sheegata ma aha naguma sheegan karto intaan ka sheegna cadawaa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaadna waa iska celinaynaa intaba waa isaga filannahay ninkii qaba inaanu isaga filnayn ka kacaan lena hurdada waa hurdo haysaa waa isaga filannahay waana isaga filnaanaynaa مرة بدل ما وحنا إلى نكهة وحلو الله في الدين تيس حتى السؤال فتش هذا مرة هذا الكمثال يتكلم شيء يتوبي وعدو يتوبي وعليهم سيبدأ وقارد سكما هينو يتوبي أيضا أيضا هاي بين أوكي أنا قاعد فوق أبصرنا سكو آتي قلب كا وحلو إلى الشيء بدأ دفاعنا دلب دفاعنا يوضن عاو كشي بالوشو قلب كلمات وقبضها كتري وحو يري وحن سوماليا عالمك u sheegaya hadii Itoobiya ay doonayso ama ay rabto inay bada soo gaarto Soomaaliya waa soo dhaweynayna wuxuu inta ku daray inay u soo gaarto sida ay bada Kenya u soo gaartay Uganda sida ay Suudaan u soo gaartay mid Kenya sida Itoobiya naftirkeeda ay u gaartay bada Djibouti isla sida uma doonayna هذا الكاس هو حن إسلاهاي وهذا النحر لهين وحميسانه أكر لو قاري كرنا لهين عنو قصدي الجركة الصومالي حتى المسيحين كايو صابتنا وحيت هاي وعندنا يمشي له يقانو يكاي دجال بدأت كمان دحيو دجال سهودين أو كيتوب نقدر دحينا كلام دحيو سودان يكاي وحنا كيتوب نقدر دحيو لوكا إنه كلا يصير تاريخ لنا ما تحمرين Djibouti anaga naga goodo waa dal cusub laakiin inta ay dawladnimada noqotay ayagii Itoobiya waxa ma dhaxmarinin
marka kiiska Soomaaliya kiiska Ethiopia wax ka dhaxeeya kiisaskaas kaleeto irrelevant buu noqonayaa shughul isku mala waxa la barbar dhigi karaa oo kaliya haduu oran lahaa alla ilaahay isku dhow yihiin Ethiopia orda casmaraha ka soo qaadata bad waxa uu ogolaatay Eritrea kuwa ba kala go'ayo dagaalkana dhex marayo dee orda u doonto kuwa sida ay Ethiopia iyo meesha loo yaqaan Eritrea aysan ganacsiga u wadaagi karin oo kaleeto oo dagaal taariikhi ah oo xuduudeed uga dhaxeeyo ayaa naga Ethiopia nooga dhaxeeya dalkaas la oran karaya hadii ayagu siiyaan nagana oo ogolaan karna ganacsi kaasa la oran karaya waa loo barbar dhigi kara laakiin dalkan oo kale dagaal ka dhaxeeyo dagaal is haysta ma iyo dal dooni isbabaan ma waxa kale la yaab leh Ethiopia ma afku xasan kaga qodiyeenaya kala ma taqaanaa qaabka kuwa kale nolol jooga Ethiopia waxay public u tiri badan qaadanaan doonaynaa intaan ka dabadnaan ma ahaanayno xoog iyo xeelad baki aan ku qaadan karna ku qaadanaa caadi yiraahdeen qofkaan marka ana kala garanayno xanuunsan caafimaadka qaba ee sheeganaya ummadda madaxweynaha u yahay waxa uu ula hoos ordayo haddaad gaaraysaan waa idin ogolna maxay tahay ninku haya xoog baan ku qaadanaya inaad qoora salaaxaysaa waa daciifnimo weyn waa maqaam aysan ummadayada Soomaaliyeed iyo badayada aysan geynin weyn dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Ethiopia hadii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan laakiin waxaan isleeyahay inuu ka hoggaan noo noqdo ama uu sheegtay inuu hoggaan noo yahay runtii waa istaahilaa qodobka saddexaad oo ninkan uu ka hadlay wuxuu yiri waxaan diidanahay uu yiri in la jahwareeriyo shacabka Ethiopia asaga diiday shacabka Ethiopia in la jahwareeriyo harabnaa buu shacabka Ethiopia uu sheego inaan waalanahay isla markaasna aan u diidanayn in hadday bad soo gaariyaan aan soo gaaraan wax dagaalna uusan jirin ayaa shacabka u sheegaynaa waa walaalaheed ma rabno in la jahwareeriyo warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahwareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahwareerinin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahwareerinin ra'yiga ummadda Ethiopia ee dariska nahay shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed darisaan nahay ismaanaan dooran shalayna waan ahayn maantaana berina waan ahaan doonaa laakiin inay jahwareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas laakiin kuwii kale Soomaaliyeed ee uu sheegay inay madaxweynuhu u yahay ayuu jahwareerinaya su'aashii aan asbuucii hore in weydiiyay ayaa wali taagan marka wali kan iyo matala iyo waa foreign agent ee ninkan Soomaali matala intii uu hadana mar labaad isku cadeynaya waxyaabo kale oo la yaab ka lahaa oo qodobada ku jiray dadku ay sida xoog galeen marka ay uga gilgisheen ayaa waxa ka mid ahaa wuxuu xaqiray halgankii dheeraa ee la soo galay badii Soomaaliya oo marka ay Kenya damcadeen hore u boobto wuxuu yiri wax dagaal ah oo dhacay ma jiro tusaale biis ah oo fudud oo macaan ah aan u soo qaato wuxuu yiri Kenya ayaan dhawito halka ay daliiginta xariiqintu ay marayso xoga yaro muran marka si reer magaalnimo oo xadaariyada baano aan isqabsan tartiib aan u tagnay maxkamadda tartiibna waa kala baxay maanta tira walaalana وهذا وقف يملك داع كوي هي دولتي ديك u shubtay asaga ka horeysay ee hogaamiyaha u ahaa madaxweynuhu shacabku ay jeclaayeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dadkii kala duwanaa ee Soomaaliyeed ee aqoon-yahanada iyo looyarada iyo shacabka Soomaaliyeed ee muddada badan qurbaha iyo warbaahinta u taagnaa in badooda ay dib u helaan oo aan muran la gelinin effortkii iyo xoogii iyo dhaqaalihii iyo dhiigii wiilashii Soomaaliyeed ee ku dhintay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya markii ay caloosho u shaqaystayaashii Kenyanku ay soo direen ay marar kala duwan duulaan ku soo qaadeen
degmada madaxa ee gobolka Gedo waxaasoo dhan ayuu ninkaasi caawa ku shubay biyo wuxuuna ka soo qaaday insa waxba dhicin wixii qof oo dhintay waxba dhimanin duulaankii Kenya ay soo qaaday lagu soo duulin buu yiri dhaqaale xoog badnaay ummadda iyo dalka ka baxay waxba dhicin buu yiri halgan ay Soomaaliya gashay oo dhowr iyo 10 sano socday ayuu ka soo qaaday xiiraan waxba ahayn markii aan dariskeena isfahm weynay مثلا annaga iyo Kenya ayaa bari xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduudii maadaama aan hore loo calaameen badda meesha ay marayso waataan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaanu loo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiiba ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayaa عارف مركز عم بدي بدي نحسوسيه مالكي بدأ الصومالية لو حكومي ولي وحنا لا جوست قارب عندنا لا جوست وآي سي جي إنه حكومتي هذا الكي وشيدي مدحولي هراء الصومالية محمد عبد الله فرماتشو لابد ميلاد وكلية كفيرة يا قد بدأ سوي دارت قيبتها كفيرة بحوي مدحولي هراء الصومالية حوش شيء هل كي يدي بعتلي سودي كان يلا صومالي ninkii markaa xilliga madaxweynaha ahaa badal xukuminayay dagaalka uu tirada badan u galay level walbana Kenya la gaaray dagaal walba ilaa safiiriin la kala qaatay meel walba isla gaaray ayaan bal iyada ka sii deynaya bal uu noo sheego wixii xilliga Kenya ay Soomaaliya isku hayeen bal dib u xasuusano Soomaalida waxa ma xasuustay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta na gaarsiiyay guushan taariikhiga ah iyo mira dhalka halgankii dheeraa ee dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortagayay damaca hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku astaysan aragti fog aqoon durugsan dhiiranaan wadaniyad ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dalka iyo dadka waxaa guuleystay xaqa waxaa guuleystay sareynta sharciga guushan waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doorteen mar walba oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyadda una midoobaan difaaca dhulkooda waa kan maanta oo kala ah oo aan ku joogno guul noo soo wada hoyatay waxaan kaloo idin xasuusinayaa xasan maantito halgankii ay dawladdaasi gashay waxa kama jiraan buu ka soo qaaday laakiin farmaajo maalinkaasi qaybtii uu xasan sheekh maxamed ku lahaa in badda dacwada kiiska badda la geeyo si raganimo leh ayuu sheegay oo wuxuu yiri waan kaga mahadnaqaynaa doorkii shariifka lahaa ee madaxweynihii hore Soomaaliya walaalkay xasan sheekh maxamuud uu ku lahaa wuxuu muujiyay inuu dagaalkaas halgankaas uu qayb ka ahaa waxa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay xasan sheekh maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya sidoo kale waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba mudan qareenadii iyo khubradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeeyaan abukaat Muna Sharmaan iyo Allah u naxariistee injineer Maxamed Umar Saalixi oo aad iyo aad uga haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama u ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan waxaan idin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahaba ka galeen taariikhda dalkeena xasanna maantayto wuxuu biyo ku shubayaa uu leeyahay halgan ma jirinba markii aan dariskeena isfahm weynay مثلا annaga iyo Kenya ayaa bari xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduudii maadaama aan hore loo calaameen badda meesha ay marayso waataan isku qabanay
وكوضا هذا اللي مركز أفقر ويننا محكمة العالم كانت تقني سيدة البحنماء أيانا نوكل حكومي جدا بنا كمدعين ما أنتنا سومالي كينيا لبا ودن أو صاحبها ما دهية ولبا ودن أو وراء أيان دهية ماركيسا وفرقي قاعد حيوي انت عشان كسو كوبيا انت دبس كسو لابن انه عندك انت سير نبدينو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته